mudanayaal waxaa soo galay gudoomiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. maanta ay taariikhdu marayso 6 bisha 2 2021 kalfadhiga 8aad kulankiisii gaarka ah ee afaraad waxaa goobjoog ah 188 xildhibaan. haddaad noo ogolaatid waxaan ku furnaynaa aayadaha qur-aanka kariimka. xildhibaan Sheekh Shaacir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد حلبانا قلها الشعب كبرلمان كفدرالك صحافة يوم مرتي شرفتك لمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay 6 bisha 2 2021 kalfadhiga 8aad kulankiisii gaarka ah ee afraad kooramka anaga waa 189 ajandaha kulanka waa warbixin ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka qaranka oo warbixintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu jeedin doono golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka sida uu qabo qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah. madaxweynaha in mar walba uu codsan karo inuu hor yimaado golaha uuna warbixin siiyo
xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan waa markii labaad ee madaxweynaha halkan uu soo fadhiisto ayadoo uu ka hadlayo arrimaha doorashooyinka. waa la socoteen doorashadii 2021 marka laga gudbaayay ee loo gudbaayay doorashada dadbaneyd madaxweynaha halkan uu yimid wuxuu noo sheegay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay wada kulmi doonaan. waxaa laga soo wada hadlayana ay yihiin sida waddanka doorasho wakhtigeeda ku dhacda loo qaban lahaa. kulankaasi wixii uu la soo kulmo wuxuu noo sheegay in madaxweynaha uu la soo noqon doono oo halkan uu keeni doono. kulankii madaxweynaha uu ka qayb galay markii ugu dambeysay halkan ayaa lagu soo gebagabeeyey 17kii September. dukumentigii ay ku heshiiyeen ama heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka xubnaha ka ah dowladda federaalka halkan ayaa laga ansixiyey. waa markii labaad oo madaxweynaha uu ku soo noqonayo baarlamaanka uu la soo noqonayo arrimaha doorashooyinka ku saabsan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ka hadli doonaa warbixin uu naga siin doonaa sida ajandaha ku qoran xaaladda guud iyo doorashooyinka heerka ay marayaan. ajandahan marka hore ansixinaynaa. ajandaha ansixino. waa mahadsantihiin. waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu u jeediyo khudbadiisa. soo dhow mudane madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم. guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh bahda saxaafadda golaha wasiirada halkan nala jooga xukuumadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo halkan maanta isugu kaay keenay iyo fursaddan qaaliga ah oo aan haysanno aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka. xaaladda dowladda waxaan u deenayaa ra-iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idiin imaan doona, laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo. xaqiiqatan ilaahay baa mahad iska leh in maanta aan hor fadhiyo xildhibaanada sharafta leh oo muddaxiloodkoodii u dhammaaday uuna ugu ekaa Diseembar 27deedii, kadibna aad ansixiseen maxaan ku yiraahdaa shuruuc uu ka mid ahaa miisaaniyadda, golaha adeega dastuurka, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shuruuc la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa. welina aad gudanaysaan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aanad gaaraysaan go'aano masiiri ah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ballantaydii aan fuliyey hadda ka hor aan idhi ma dhici doonto baarlamaan awooddiisa la qaato oo ay madal qaadato. ma dhici doonto baarlamaan albaabada la isugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo 1 sano ah. alxamdulillah hadda waxay u eg tahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxaa idin beddelaya xildhibaano la doortay oo keliya. taasna ma aha cid aan asxaan ugu samaynayno. waxa weeye waa waajibna saaran dalka aysan ka dhicin firaaq dastuuri ah, inaysan ka dhicin. waana waxaan aaminsanahay. waxaa xaqiiqo ah annagu inaan nahay dad xora, dowlad leh, shuruuc leh iyo dastuur. marnaba aynan dhegaysan
shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan oo aan nahay dal buuxa dal buuxa oo go'aan leh raalli ada raalli ada dhegaysto inta miiska garaacaysa iyo inta sacbinaysa intiinaba joojiya madaxweynaha la dhegaysto nood ka qaata bas waxaan guddoomiyaha hadalkiisa aan ku darayaa xaaladdan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma laha muxaafid ma laha mucaarad ma laha waxa weeye waa hawl noo taalla oo go'aankeeda noo yaalla maad muxaafidna ma aha goob mucaaradna ma aha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah ma aha waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa idinku aad leedihiin ma aha waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay ee nagu ammaanatay weeye marka sacabka iyo qaylada dan ma aha inaan is dhegaysanaa fiican go'aan baa noo yaalla masiiri ah ummaddana naga sugaysa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka waxaa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod bilowgii 2017 markii la ii doortay waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod mabaadii aasaasi ah weeye waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladdoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan waxa aan magacawnay guddi la yiraahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama FNTC la yiraahdo yaan magacawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftigooda soo dirsaday waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan khayraadka dalka uu ugu horeeyo shidaalka waxaa kale oo shaqadooda ahayd inay ka shaqeeyaan shuruucda doorashada laysu soo dhoweeyey dowlad goboleedyada marka dambena sharci golahan uu ka soo saaro ilaahay waa noo fududeeyey shirkii baydhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada waxaa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo labadii ajendana ilaahay waa nagu guuleeyey oo kulli haddaan nahay dowladdii dhexe iyo xubnihii dowladaha federaal ka midka ahaa ay wada saxiixeen aanu ku gaarnay go'aan in aan dalka u gudbinno doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yiraahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waan isku raacnay waa saxiixnay halkaas waana wada qaadanay kadib waxa aan u soo gudbinay golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhammaysteen oo sharcigii ay diyaariyeen golahan iyo u soo diyaariyeen ama u soo gudbiyeen golahanna runtii si sharaf badan yuu
waajibaadkiisa u gutay inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn. maxaa yeelay annagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalkao dhan ka dhaca. macnaheedu waxaa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga al-shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku rahdaa ay nooga maqan yihiin kala aragti duwanaansho siyaasadeed in laga maarmo oo horey loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho, uusan lahayn qofku hal meel ama hal degaan uu adeegayo aysan ahayn oo u adeegayo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay. guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay, wuxuuna la yimid nooc kale oo la yidhahdo majoritarian la yidhaahdo oo ka duwan kii hore. anugu runtii raalli kama ahayn, waana ogaa inuu dhib la imaan karo, laakiin waa idiin tanaasulay. waa diidi karay, waa viito garayn karay, ama dib baa idinkugu soo celin karay. ma yeelin. haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas-uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas isaga waa idinla qaatay, anigoo ka dhex arkaya keliya inay ku jirto shacabka Soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan, ay ku doortaan axsaabay u baahan axsaabahay rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan. tanaasulkayga ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday. waxaan damacnay in aan dib ugu noqonno dowlad goboleedyadii. Puntland iyo Jubbaland yaa diiday oo yidhi wakhtigeeda ma aha doorashada noocan oo kale ah. muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno, waa ku guulaysan weyn. waxaan ku casumay magaalada Muqdisho halkan inaan foolkafool aan uga arrinsanno arrintaas, go-aan degdegna aan uga gaarno bacdamaa ay noo harsan tahay wax sanad ka yar. nasiib darro labadii maamul waa diideen, inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aanan doonayn si gaar inaan u shirno. waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go-aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan Dhuusamareeb, halkaas ay igu casumeen. iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan Samareeb ugu tago markay ay kulmeen Samareeb 1. waa idin imid, waa idin hor imid, waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado. Samareeb 2 waa ka qayb galnay. nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin. waa ka cudurta maxaan ku raahdaa Samareeb 2 waa nimid, waa ka hadalnay, wax badan yaan meel isla dhignay. waxaan ku ballannay inaan Samareeb 3 aan ka dhiganno kulankeenna, aan go-aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado. waa idinla tashaday, waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen, bal walaalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood. waa kulannay Samareeb 3. nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin, waa ka baaqdeen. saddexdii kale yaa go-aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod. waxaan weydiiyey labada kale aan sugno, waa raadinay, waa noo imaan waayeen. waxaan u fadhinay 10 casho. maalintii 10aad yaan go-aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii dayno markii aan quusannay. iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayna haddaan dowladdii federaalka nahay, ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno, waxna ii keena waxna qaata. waxay keeneen noocaan ahayn 2016. taydiina waa laga tegey, meel dhexe iyo wax soo madmadoobeeyeen. waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo,
oo tartanka lagu galo deegaanadii in la badiyo dadkii codeynayana iyagana sidoo kalena la badiyo guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go-aankaas gaarnay waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdamaa aan sugnay 10 casho oo si kasta aan isugu dayn inaan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkayeen dhib u arkayeen kii 16kiina 2016na uusan ahayn waa ka biidiideen nasiib darro waxaan ku khasbanaa in aan muqdisho ku casumo marka muqdisho yaan ku casumo waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed maxaan ku yidhahdaa September 17 17 September aan go-aanka ku qaadannay taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tegey tii dhusmareebna waa ka tegey tan waa tii saddexaad marka haddaba 17 September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkayga wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii Samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo madmadoweysta waxaa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyey waxaan ku iri qol gala wax ku soo heshiiye qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobaynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinkugu harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yidhahdeen kama noqonayno wixii aan rabno waa helnay waana kaa adkaanay waayahay waxba kama qabo waa tanaasulaaye waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan waxaydan wax ka soo noqonayo male ee baarlamaanka noo gee hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixinaa xitaa heshiis ku dhaafimaynas afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya Somaliland hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah yay uga dibeed gareeyeen waxaad ku aragteenna saas yay ku dhammeeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyuu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laisku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran uu yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah ama ay tahay guddigan guddiga ku habboon calaa ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo ay iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen
waxaa diiday puntland iyo jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu cebeynna shacabka soomaaliya aysan qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idiin sameeyey waxaan ummadoo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah oo ku jirana annagoo soconno oo uu socdo doorashada socoto hala saxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhowaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo siciidani uu yidhi ii soo dir ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaarahan wada hadlaynaaye ra-iisul wasaarahan u diray ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raahdaa joogay meesha la yihahdo garowe magaalada garowe 10 beri ku dhowaad 7 beri markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroobi weydi intaas kumayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqoor iyay dadku iskugu dhow yihiin deni axmed qorqoor yaan u diray aan ku idhi bal la soo xaal haddii iyadoon la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xallin karno bal ka keen dalab hadday hayaan waa tegey horay kama tegin meesha ahayd samareebe xamar yuu toos u yimid isagoo farriintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad waxaan ku celi waa ka aqbalnay inta 3 arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anugu marna ma odhanayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb 4 aan odhan karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filaayey haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dubbe yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas aysan hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambayn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 Sebtembar taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan u nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar waxaa nooga baxay wakhti aad u fara badan laga soo bilaabo July June aan iraahdo sanadkii la soo dhaafay ilaa shalay waan oran karo muddo ka badan 8 bilood 9 bilood weeye intii aan saxiixnay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa
waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri aysan dhici doonin idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waalehen oo aad ku qancin kartaan 17kii Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وكاليا ان مدحويني horta waxaan idin sheegayaa xildhibaanada sharafta leh xeeroosaadka la ilaaliyo xeeroosaadka sacabna ma ogola miisna in la garaaco ma ogola qofka fikirkiisu cabiri karaa kulanka annaga maanta halkan ayuu ku eg yahay waa fadhinaynaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ka baxo aad iyo aad u mahadsantiin